ma ogtahay in caanaha ilmahaaga siinaysa marka qaarkood ku sababi karaan oohinta, dhibaatada, wareerka, qalqaaliga cunugaaga aad ku wareersanta oo fahmi la adahay in caanaha siinaysid ba sabab u noqon karaan calooshiisa taagan tahay. mararka qaarkood waalidiinta u moodaan lactose intolerance inuu yahay, laakiin ma kala taqaanaa caanaha aad siisid nooca ay yihiin ilmahaaga. ma maqashay caanaha A1 iyo A2. assalaamu calaykum waraxmatullahi, magacayga waa Canab Ciise, barata cilmiga nutritionka. videogan waxaan uga hadli doonaa maadaama kasoo hadlayna ayaanta nafaqada 10 maalmood ee nolosha ugu horeyso ilmaha fokuska ku saari doonaa iyo caanaha ilmahaaga u dooreysid kuwa fiican iyo kuwa iska deyn doontaa. caanaha waxaa ku jira protein la dhaho beta casein. waxay u kala baxaan laba nooc, beta casein 1 iyo A2. waxayna ku kala duwan yihiin amino acidska ku jiro structure-ka qaabka oo maxaa la dhahay uu samaysan yahay. waxayna kusii kala xiran tahay lo'da ay ka imaadeen typekeeda. marka waxaa jirto A1ka caanaha waxa waaye caanaha maanta loogu isticmaalka badan yahay businesska ugu weyn suuqa waxayna ka imaataa lo'dan European-ka oo lo'da waaweyn oo caanaha badan oo quruxda badan oo aragna waaye. lo'dan marka waxaa ku dhacay genetic mutation wax la dhahayo, hidasidaheeda isbedel ku imaaday. so lo'di asalka ahayd ma aha. A2 meelka ayagana waxay ka imaataa waa type kale lo'da haddii adhaano Africa iyo Asia maanta joogo. lo'da geesaha dhaadheer oo kale caanaheeda way ka yar yihiin caanaha lo'dan. sida lo'da ma u qurqurux badno, laakiin waa lo asal oona isbedel ku imaanin. waxaana la dhahaa dhibaatadooda iyo qatartooda ma badna. waxay kale ka imaadaan caanaha ariga iyo geelkane waa A2. misla fahanay markay noqoto proteinka labadan type ku kala jirane A1 iyo A2gana waxay ku kala duwan yihiin sida idin sheegay structure-ka qaab dhismeedkiisa. iyo midkan A1 waxa ku jira histidine amino acid, kan kalena waxa ku jiro proline. so farqigaasna u dhaxeeya. loo kale idan waxaa jirto Jersey la dhaho, ayagana caanaheedu way fiican yihiin la dhaho, iyo caano oo A1 iyo A2 labadaba la isku dara eedana suuq way yaalaan. so caanaha ma aragtay way badan yihiin, adiga inaad fahantid oo kii health ilmahaaga way adiga ku aad dooratid adag ugu xiran tahay. so cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday caanaha A1ka inayna u fiicneen mindhicirada caloosha dadka ilmaha, laakiin anaga maanta fokuska saarayna. so caanahana dadka ugu badan oo isticmaalo waa ilmaha. nolosha waxaa laga soo bilaabaa caano in la siiyo ilmaha, soo maaha. so uma fiicno digestive systemkiisu qalqal ku ridaya ilmaha. waxa ku dhacaya calool istaagu ku sababa, calool xanuun ku sababa. maxaa dhacay dhibaatadan xagee ka imaanaysa? waxaa ku jirto stuff la dhaho mise uu soo daynaya jirka beta casomorphin. saas darteed markii la soo daayo jirkiisun ku noqonaysa dheefshiidkii, waxay ka dhigaysaa qalqal gelinaysa. kadibna maxaa dhacayo ilmihii wuxuu dareemayaa calool xanuun, calooshiisa qalqal, maxaa la digestive system qofka bini'aadamka calooshiisa dee hagaagsaneen deganaansho dareemeynin wuu wareeraya. ilmo yarna maxaa ka sugay ilmaha feelingkooda afka kama sheegi karaan waxaana dareema xaggaana xanuuna ma ku dhigi karaan feelingkooda, laakiin waxay kusoo gudbiyaan enerjigooda ka arkaysa ilmaha wuu oynayaa, bad energy oo haysta, caloosha xanuunayso, wuu qalqalsan yahay. weliba ilmaha haysto maaragtay ilmaha neurodivergent-ga ilmahaas weliba waxay kusii qabaan dhibaato caanahan. so totally ilmahaaga haddii uu special needs yahay, autism, ADHD waxyaabahaas u haysto ilmahaaga, totally caanahan hasiin anima kugula talin lahayn. waxaa jirta cilmi baarisyo laga sameeyey. cilmi baarisyadaasna waxay sheegaysaa in ay sababi karaan cudurrada sida diabetic type 1 oo kale iyo cardiovascular disease, wadnaha xanuun ay ku sababi karaan dadka. laakiin research-gan waxaa kasoo horjeestay shirkadaha waaweyn oo businesska. European Food Safety waxay dhaheen cilmi baaristan wax ka jira ma laha, laguma qanci karo. hoos waxaa lagu bini'aadam laguma sameynin, waxaa lagu sameeyey keliya xayawaan sida maxaa la dhahayay dooliga iyo bakeelaha lagu sameeyey. so wax lagu qanci karo ma aha. laakiin adduunka waxaa waaye business, ayaga lacaga la siimay biyo doolaaba kasta. waxaa la dhahay naga aamuso waxaan beeniya. so food industry-ga maanta waxa
wax badan oo qarsoonaa soo baxay beentoodii la ogaaday munaafiqnimadoodii la ogaaday dadkii in ayaga sunsiyana la ogaaday in ayaga dadka laayeen la ogaaday in business dadka sameeyeen la ogaaday maxaa dhacay mid kale xiriir leeyihiin walaa waxyaabaha ugu yaabka badan maaragtay marka wax baranayna jaamacadda kale maaragtay nutritionka waxyaabo badan u jeedaa oo la dadaboolayo maaragtay oo lagu dhahayaa wasaaradda caafimaadka sidaan ay dhahday soo waa ina aan raacnaa waxaana la isla soo gooyay saan waay laakiin waxaan u jeedaa marka weydiis professorka jaamacadda koodhigay kan kale xataa markii oo laga dooday iyo ardayda iyo mararka qaarkood yaa adduunka waa ka xunahay business lagu dhahaa so adiga naftaada mas'uulka ah more critical noqotid more wax aqriskaaga bato more indhahaaga soo jeedaan wax fahmaysid waa more caafimaadkaaga maaragtay uu safe noqonayo koos cid ku naxayso malaha qof kasta adduunkan business wuxuu ka sameyn karo oo ogtihiin dadka hilibkooda la cunaay dadka madaxda cunaayeen ilmaha abuse-ayeen like hadeeba kaaga sameyn karaan business indirect ayagoo ku dhahayo waxaan ku fiican yihiin ka waran of course marka qof kasta business uu ka sameeyna hadda kuwaan kale waxay leeyihiin there's no enough evidence ay ku leeyihiin wax cadeen saxan ah ma jirta lagu dhahay laakiin kadibna waxa la soo saarayba caanihi waa isku darnay A1 iyo A2 la isku daray suuqa la keenay ayada xataa ma aragtay shaki kala waay isku dareysiin waay loo bedelay like genetic mutation uu ku dhici karaa like environmenting uu isbedelaa wax kasta isbedel uu ku imaadaa bini'aadanka shalsa ahayn saw ekeen maxaa la dhahay manihin laakiin isbedelkan kaliya maaha isbedel oo nature-ka ah isbedel waxa waaye ay ayaga sameeyeen ma fahmaysiin si business looga sameeyo maanta waa arkaysiin doorada sidee maxaa la dhahay hadday dhalatay hadday dhashay hadday ukunteeda la cunay hadda la qashay caanaha waa arkaysiin too much caanaha oo laga soo saarayo lo'da so maxaa safe ah ilmahaaga siin kartaa A2ga maxuma waa siin kartaa laakiin ayaga xataa 100% safe ma aha ilmahaaga caanaha qaarkood markay xasaasiyad ku dareemaan jirkooda markuu diido waa in aad fahantaa caanaha ugu safesan horta maanta adduunka waxa waaye markay noqoto lo'daas maaragtay example zebu la dhaho kale Afrika joogto iyo Asia iyo oo cawska daaqdo iyo ariga iyo geelka caanahooda iyo maxaa la dhahay milk project cheese-ka wax kasta laga soo saaro waa safe kuwaas kale waa fiican yihiin laakiin kuwan oo A1ka waliba hadeertaan waxa akhrinay research ay ka soo horjeedeen doodaha la imaanayeen waxay dhaheen waxaan sameynay anaga cilmi baaris sameynay caanaha A1ka iyo A2gaba BCM7 maaragtay waxaan stofkan wuu ku jiraa A1ka A2ga buu ku jiraa soo hanoo bunbunin like A1ka bisu ku jiraa waxaas waa sheekay dhaheen laakiin waxba kama jiraan ayaga istifaacoyo soo ma ku raacsanin waa ka soo horjeesanay yes as marka waalid adiga choice iska leh ilmahaaga caanaha u soo gadanaysid A1 ma aade oo dhibaatooyinka ilmaha ku sababi karo mise waxa aadaysaa A2ga already hadda waa fahansantaa rajeynaa videoga taa dhameysatid so waxaan rajeynayaa haddaa videoga intaan nala soo gaartay in noo like garaysid asxaabteeda hore daada ka mid ahayn nagu soo biir meeshaan wax badan ka faa'iidi doontaa yes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.